Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta intaynan muuqaalkeena u gudagelin waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad kusoo biirto channelkeena Mo Films. maanta filmkeena waa mid ku bilaabanaya laba macallin oo leh xirfad dagaal oo isku mid ah waliba aad u heer sareysa. Mid waa xirfadda gorgorka halka midka kalena uu yahay xirfadda marska. Halkaas waxay isku dhaafsanayaan dagaal adag laakiin ugu dambeyntii waxaan arkaynaa in uu guuleystay midka xirfadda gorgorka ahaa. Intaas kadibna muuqaalku waxa uu isku jiraa mid ka mid ah dugsiyada ku yaala dalka Chinese-ka halkaas oo lagu barto dagaal kung fu ah. waxaan arkaynaa wiil yar oo nadiifiye ka ah dugsiga kaas oo lagu magacaabo Chen Fu. waxaana arkayaa ardayda da'adiisa ah kaas oo baranaya dagaalka. Intaas kadibna isagu waxa uu xiiso weyn u qaadayaa in uu mar dagaalkan barto oo inta uu dagaalka inuu barto isku dayayna waxa si lama filaan ah u arkay macallin Lee kaas oo garaacaya waxaana ciqaab ahaan uga dhigaya inuu nadiifiyo dugsiga dhammaan isagoo kabihiisa xiran ayuuna dugsiga ka wasakhaynaya. Intaas kadibna waxaan arkaynaa inuu macallin Lee baraya ardaydiisa qaabka la iskugu difaaco qofka waliba si practical ah isagoona u yeedhay Chen Fu waxaana ku garaacaya dadka hortooda. Arrintaasna Chen Fu waxa uu xanaaqayaa si daran isagoo aad u xanaaqsan ayuuna imaanaya dhankaas iyo guriga. Qofka kaliya ee Chen Fu u naxariistana waa cunto kariyaha dugsiga. wuxuu dhanka kale aan arkaynaa odayda ah kaas oo lagu magacaabo Bai asagoo iska fadhiya meel cidla ah waxa soo weeraraya koox arday ah kuwaas oo aan ogeyn inuu odaygan yahay mid ka mid ah dadka adduunka ugu yaqaan martial artist-ka waliba qaybta maska. intaas kadibna waxa isku dayeen inay la dagaalamaan laakiinse intuusan gacan u qaadinba waxa goobta imaanaya Chen Fu kaas oo isku dayay inuu caawiyo odayga laakiin isaga xataa waa la garaacaya. intaas kadibna Bai ayaa dadka hortooda kaga yaabsanaya xirfadiisa Chen Fu waxaana Chen Fu la dhacaya xirfadda Bai. intaas kadibna waxa uu Chen Fu u soo raacaya gurigiisa. dhanka kale macallin Lee si uu xirfadiisa ugu qanciyo dadka imaanaya dugsigiisa wuxuu Chen Fu ka dhigay darbi qof walba ku tababarto kaasoo aan dareemin xanuun waxaana garaacaya odayga taajirka ah wiilkiisa. dhacdaas kadib isagoo jabsan ayuu guriga ku soo laabanaya laakiin si lama filaan ah waxa ku noqonaysa Bai kaas oo tusay xirfadiisa dhanka dagaalka waxaana uu sheegayaa in uu ka qaado saxanka uu gacantiisa ku hayo laakiinse isku day walba oo uu sameeyo waa uu ku guul dareysanaya. waxaana Chen Fu ka helaya xirfadda Bai. intaas kadibna marka uu Chen Fu gacanta ku dhigo saxanka waxa uu isku dayaa in uu sameeyo isla sidii qaabkii uu sameeyay Bai laakiinse waa isla marka uu qabtaba waxa ka dhacaya saxanka isaguna waa uu iska qoslay isagoon waxba dhihin. intaas kadibna waxa aroornimadii markii uu Bai soo kaco waxa uu arkayaa inuu marna macallinkiisa Bai uusan meesha jooginba waxa uu derbiga ugu qorayaa sida martial artist-ka loo barto isagoo tusaya calaamado loogu talagalay martial artist-ka kuwaas oo khaas u ah waxaana dhulka ugu sawiraya calaamadihii Bai. intaas kadib Chen waxa uu isku dayaa inuu barto laakiinse waxaan arkaynaa inuu ku dhibtoonayo ugu dambeyntiina waxa uu baranayaa si fudud. dhanka kale macallin Bai waxa soo weeraraya ciidamada basaasiinta ah ee uu soo diray Chen Lee kaas oo ah cadowgiisa waxayna isku dayaan in ay dilaan. intaas kadibna waa uu ka dhuumanaya. dhacdaas kadib macallin Lee waxa uu Chen Fu u wacayaa si loo garaaco mar kale sidii caadada ahayd laakiin waxaan arkaynaa markan inuu Chen Fu soo barto xirfad dagaalka waxaana iska caabinaya weerar kasta oo lagu soo qaado isagoo ardayga taajirka ah ku bahdilaya dadka hortooda. kadibna macallin Lee oo ka xanaaqay ficilkaas waxa uu garaacaya Chen Fu. intaas kadibna Chen Fu waxa uu soo baxaya dhankaas iyo banaanka isagoo waliba ordaya waxaana ku arkaya macallinkiisa Bai oo hadda dhaawac ah waxa uuna keenaya gurigiisa isagoo isku dayay inuu ka baabi'iyo dhaawaca. intaas kadibna waxa uu ka macallin Bai in la siiyo tababar adag Baina waa uu ka aqbalaya isagoo siinaya tababarka maska kaasoona ah midka ugu fiican. dhacdaas kadib Chen wali waxa uu ku jiray shaqadiisa nadiifinta inta uu shaqadiisa nadiifinta ku jirayna waxa uu imaanaya macallinkiisa Lee kaasoo isku dayay mar kale inuu ka qashqashaado ama dhibo shaqadiisa isagoo u dhigaya lugihiisa. kadib macallin Lee ayaa isku dayay inuu dhibo balse Chen Fu markan waxa uu noqday mid aad ugu xeel dheer dagaalka isla markaasna waxa uu ka hor istaagaya talaabo walba oo qaado taas oo macallin Lee aad uga yaabinaysa. intaas kadibna dagaalyahan ka socda dugsiga ay xifaaltamaan ee macallin Lee ayaa waxa uu imaanaya macallin Lee iyo asxaabtiisa waxaana uu sheegayaa inay iska celiyaan balse macallin Lee waa uu iska diidaya taas oo keentay inuu si xun u garaaco Lee iyo gacan yarihiisa. intaas kadibna waxaan arkaynaa in dhammaan ardaydu ay raaceen isaga. dhacdaas kadibna waxa goobta imaanaya macallinkii Lee wiil adeer u yahay kaas oo ku maqnaa dalka dibadiisa. marka uu arko dugsiga cidla ahna waxa uu imaanaya Chen Fu kaas oo wax walba u sheegaya isla markaasna isagu waxa uu imaanaya dugsigii ay ardaydu joogeen waxaana uu soo bandhigayaa in uu la dagaalamo haddii uu ka guuleystana ardaydiisa loo celiyo waxaana halkaas ku dhexmaraya dagaal aad u qadhaadh waxaana arkaynaa in ay isku xirfad yihiin balse ugu dambeyntii waxa laga guuleysanayaa isaga. waxaana intaas kadib dagaalka soo galaya Chen Fu kaas oo xirfadiisa dadka kaga yaabsaday maadaama uu waqtiyada fasaxa aad u sii tababaran jiray waxa uu la dagaalamayaa nin ku guuleystay horyaal kung fu-ga. dhacdaas kadib
dhammaan ardaydii waxay u soo laabanayaan dugsigooda. Intaas kadibna Lee waxa uu imaanayaa guriga, waxa uu halkaas ku arkay Chang Li kaas oo ah cadowga macallin Lee iyo dhammaan qabiilka maskaba, isaguna ma oga waxa uu la galaya dagaal saaxiibtinimo ah. Intaas kadibna waxa uu sheegaya Chang Li in uu yahay saaxiibka Bai, isagoo uu sheegaya in uu soo wargeliyo marka uu yimaado Bai. Intaas kadibna Chen Fu waxa arkaya mas iyo bisad isdagaalaya, bisadana waxa uu ka baranayaa qaabka ay gacanta kor ugu qaadayso taas oo ay ku dagaalamayso. Maalinkaas kadib waxa uu isticmaalaya xirfadaas isagoo oo ku daraya dagaalkiisa. Dhanka kale Bai waxa daba socday basaaskii uu soo diray Chang Li, isagoo meel cidla ah ku helaya. Waxaan arkaynaa isaga iyo Bai inuu dhexmarayo dagaal, isla markaasna Bai kama cabsanayo waa uu la dagaalamaya, balse Bai waa uu ka awood badnaa taas oo keentay inuu si dhaqsiyo leh ugu dhameeyo. Dhanka kale Chen Fu iyo Bai oo wada jooga waxa guriga imaanaya Chang Li, isla markaasna Bai waa uu ka baxsanaya goobta. Chang Li-na waa uu soo eriyanayaa Bai, halka Chen Fu uu ka hor istaagayo wadaadkii kiniisadda aan soo arkaynay kaas oo iska dhigaya wadaad. Intaas kadibna waxaa dhexmaraya dagaal aad u adag afarta dhinacba, kaas oo mid walba xirfadiisa soo bandhigayo. Ugu dambeyntii waxaan arkaynaa in uu Chen Fu ka guuleysto odaygii wadaadka ahaa. Dhanka kale Chang Li waxa uu in badan raadinayay Bai, laakiin ugu dambeyntii waxa uu helayaa, waxayna isdhaafsanayaan dagaal aan waxba la isku reebanin. Mid waxa uu la soo baxaya xirfadiisa, mid kalena waxa uu la soo baxaya xirfadiisa gorgorka. Markaasna waxa dagaal ku gacan sareynaya Chang Li maadaama uu ahaa nin dhalinyaro ah, waxaana dagaalka soo dhexgelay Chen Fu. Isla markaasna Chen Fu waxa uu ahaa mid awood aad u badan leh, waxa uuna la dagaalamaya Chang Li, weerar kastana waa uu iska difaacaya. Intaas kadibna waxa uu dagaalka ku gacan sareynaya Chang Li mar kale, isla markaasna isagu waxa uu ku helayaa fursad aad u daran taas oo dhulka uu hal mar ku dhigayo, isagoona u isticmaalaya qaabkii uu bisada ka bartay. Waxa uu dhafoorka kaga dhufanaya gacmihiisa, waxa uu madaxiisa kaga dhufanaya gacmihiisa, taas oo keenaysa inuu madaxa dhiig kaga furmo. Isla markaasna waxa uu ku guuleysanaya dagaalka. Isla markaasna waxaan arkaynaa in uu cunto kariyuhu u yimaaday, in ka badan 20 sano cunto kariyihii u shaqaynayna. Waxa uu sheegayaa inuu shaaha sun ugu daray, taas oo ka yaabinaysa. Waxauna sidoo kale u sheegayaa in ay dhiman doonaan dhowaan, laakiinse macallin Lee iyo Chen Fu ay ku jeesjeesayaan ayagoo iska dhigaya inay xanuunsadeen. Intaas kadibna waxay iyaguna dilayaan cunto kariyihii ayaga oo ku ciyaaraya. Waxaan soo gaarnay dhamaadka filimka, waad ku mahadsantahay daawashadaada saaxiib. Haddii aad halkan soo gaadhay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe tiraahdo, sidoo kale aad muuqaalkeena like saarto. Sidaas intaan muuqaalkiisa xig ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.